gabar iyadoo 12 jir ah oo aroosa ninkeeda la dhigay xabsiga jeel ogaadeen sidaasna ugu biirtay ciidamada ONLF ayaa kamid ahayd askartii iyagoo tababarka ku soo dhameystay Eritrea laga soo dejiyay magaalada Jigjiga. Nimco Sheekh Maxamed Digil oo muddo dheer kadib ninkeeda indhaha saartay ayaa qisadan iyo waayaheeda nolosha uga sheekaysay wariyaha BBC ee magaalada Jigjiga Cabdinaasir Xikam. أنا قان قاعدين وعرونا بأباه اللي حري عروت النادي أقان عمل اللي جسوا كوريي معنا كسر حسوي رئيس أباه أود أنت هذا نحكوس عادي ما ذن أركينين ما إلا ولا بحكي لو قاعدين بأباه اللي جاي مركي محن كل هذا اللي جاي من نجور دم بيسي لا بلاد اسكو حتى منا أود أنت بسوي رئيس منا ونقول هي أنا جينا وإن لا كنت رالين أو تقولنا أو أباه يعني سو أرجنا marka aan yaraan qaan gaadhin ba marka hore cuqdadii xal lagu abuuray inaan maxaan ku dhahday dhibaato naftayda ka awood badan ay ugu timaado marka maxaa dhibaatadii inta la ekeyd maxaa ka dambeeyay kullu waxa ka dambeeyay dadka kale ehelka inta waa la dhibayay markii dambe anoo saadaan u qaan gaadhay waxa lagu yiri eedaysana tahay gobolkii aan deganayn iyo magaalada nadi baa laga saaray miyi baan isaga baxay miyigi hadana la igu soo raadsaday anoo miyigi jooga baan marka wiil guursaday marka imse jir baad ahayd 16 jir baan markaas marka saadaan u guursaday wiilka la iga xalay wax lagu maagay ma sheegi karayo laakiin asna jeel ogaadeen baa la geeyay 9 sano baa hadda jeel ogaadeen ku jiray ilaa iyo hadda anoo ciidan aan soo nimaadno oo Jigjiga gudaheeda isku nimaadno asagoo asna jeelka ka soo baxay markaas wiilkiina la xidhay aabana uu ka sii horeeyay maxaad samaysay adigu markaas waxaan sameeyay anigu meel kale oo qabsadaan waayo hooyadii carruurtii sida agoontii u korinaysay meel ay la qabatay iyada maxaan ku dhaday walbaharkeedii ay dhamaysatay Soomaaliya isaga carray oo meelaha iyo qurbahan galay Soomaaliyana meel naftayda aan ku haleeyo oo fadhiyaan garan waayay marka maadaama bulshadii iyo dadkii aan la dhashay ehelkii iyo dhammaan reer ogaadeen oo la dhibayo gabdhii aynigay ahayd jeel lagu wada goray ana la soo eriyo markii xataa wiilkii la xidhay aan la iga hadhin aniga la raadin jiray oo islaantiisina soo qabtay la dhihi jiray meel aan ku istaago ogaadeen markan ka waayay Soomaaliyana sidii oo kale meel xajiiso oo maxaan ku dhahay naftayda aan ku aaminay waan ka waayay marka ma gudaha timid oo jabad ku noqotay mise isla markiiba tababarkadaadii wadanka la tiriya ما يقولها مركز إذا لما بسوقي لك إنه حدود لقى سوقلها ما لهين حتى مستوقية مستوقيها أجمع حن كل هذا سؤال بدن بلقاه ويديني مركز عكتب ودن كلام سوقي لكن توبر بين هذه توبر كأنا عن صدق إن أنكو سوقله ودن كقري دجال كو سوقله فواحد عايز بدل كان ما أنت تاجن إمسد بلوبة توبر كوترتي أنا كل السنة بدن بكوتري إن توبر كنا صار ما يستي وكل يعيدي مجلين توبر بدن واسوقاتي كل أنت أنا سوى بجني توبر كي إنك بدن بوان وكوتري توبر أباه ولا سوداء طبعا مركا مسرك تمولي أباه ولا سوداء دمان أهل كل سوداء ما أنت جلوجاني وحكوتري من تران لكن أبا ولي إنها اسمها نصارى عضبة لكن واحد ويلكي أدوات جوكتين بسرقتين wiilka maalinta soo degnay waan is aragnay kulay dad in badan kala maqnaa oo asagina jeel ruux ka soo baxay iska diifaysan anna tababaran ka soo baxay maanta Jigjigaan wada joognaa wax caruur idin ma dhaxmarin soo markii horeba caruurta xagee naga dhaxmarisada isu gursanay waana la kala eriyay ilaahayna isma qadarin hadda ka horena caruur isu yeelan bal xilligan aad joogto iyo sida tahay bal sukaan barbar dhigbal kulay anoo yar oo daayar ah hada ruux weyn oo dhibaato weyn ka soo sheekayn karaan ahayn kulay waxaan filayaa rag badan oo boqolaal sano kor u dhaafay inaan ka waaya aragsanahay bad baan maray birima badan baan maray wadamo badan baan maray ma waxaad aaminsan tahay dhibkii aad qoriga u qaaday inuu dhamaaday ma aaminsani waayo muna dhamaanin xabadii baa joogsatay baa la dhihi karaa balse maadaama siyaasaddu isbedeshay hadda xal nabadeed baan ku jirnaa mana aha inay dhamaaday halgankii iyo dhibkii waxaan u soo marnay laakiin siyaasadii baa dhan qabo isu bedeshay waan ka midhan dhalin doonaa insha Allah bidnillaahi kariim yani dhanka qabo baad ka midhan dhalin doontaan xagga qabo hadii xataa inaga fursan weydo kuleel nala gasho ma reebi geeri mooyaan ama maxaan ku goobnimo inaan qaadano calankan oo kirigi istaaga mooyaan kama tanaasuleyno halgankan ma laga yaabaa inaad askarta iska badayso mar hadii dhibkii badnaa ee dadka soo mari jiray hadda dadku wada sheegayaan inuu yaraaday ama fududaaday ma deyn karayo waayo dhibkii inaan suuliyo mooyaan ma ka tanaasulayo askarnimadkayga weligiina waan ku jiraya aniga oo gabadha geeraarka waxay baray gubaaba igu dhahay goohaygu wuxuu ku yimid gartii xaajada waxa guudka igu xidhay kablan waxay baday gugaygu anoo yariyahay waxaan u galtay oo goobtan waxa ay dhigay gacalisay hooyada geedka igaga xidhay ongeesigii dhalayna magaciisa uga gabaday dhammaan geyigayga waxaan uga ahay goodoon gubaan ku dhashay dagaal fooda la isla galay dirna guurkayga gaaf baa la iga dhigay nabad ma soo gaadhin iyo raaxo lagu goglado gartay weeyaan ciil gaamuraan qaba cabasho kuma gaabsanin guulo waxaan ka sugi inuu i garansiyo tawxiidka ila gudboon oo aan ku guuleystay akay garabka sulan taasina